wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo jeedinaysa in Mareykanku qaabilaan tiro ka yar qaxootigii la qorsheeyay sanadkii hore inay ka yimaadaan dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe iyadoo laga doorbidayo in la kordhiyo qaxootiga ka imaanaya dalalka Asia, Europe, Latin America iyo Caribbean-ka sanadka soo socda sida lagu sheegay qoraal wasaaradda laga helay. afhayeenka wasaaradda ayaa ku xaqiijisay email jiritaanka qorshahan oo markiisii ugu horeysay ee shaacisay jiradda Politico. tiradan ayaa ahayd mid kama dambeys ah oo la isku raacay balse wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u sheegtay VOA toddobaadkii hore inay wadaan qorshe ay doonayaan inay wada tashi kala yeeshaan arrintan Koongareeska Mareykanka ka hor inta uusan dhammaan sanad howleedka dowladda oo ku eg 30 bishan Sebtembar. kadib wada tashigaasi ayaa la filayaa in madaxweyne Trump uu soo saaro baaqa sanadlaha ah ee madaxweynaha kaasi oo xaqiijin doona waxa loogu yeero tirada qaxootiga sanadka soo socda loo ogolaan doono Mareykanka. isbeddelka lagu sameeyay goobaha ay qaxootiga ka yimaadaan ayaa ka mid ahayd soo jeedin la doonayay in lagu dhimo tirada guud ee qaxootiga Mareykanka la dejinayo sanadka 2019 oo laga dhigo 30,000 oo qof. tiradan ayaa ah tii ugu yareed qaxooti dalka Mareykanka yimaada sanad taariikhda. sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka tirada loo qoondeeyay gobol kasta ayaa kala ah sidan: Afrika waxa laga keenayaa 11,000 oo qof halka miisaaniyadda qoondada ee sanadka 2018 ay ahayd 19,000 oo qof. koonfurta iyo bariga dhow Asia oo bariga dhexe uu ku jiro waxay helayaan 9,000 oo qof halka tiradii hore ay ka ahayd 17,500 oo qof. bariga Asia waxa uu helayaa 4,000 oo qof halka markii hore laga keenay 5,000. Yurub waxa laga soo qaaday 3,000 oo qof ayadoo loo kordhiyay tiradii hore oo ahayd 2,000. koonfurta Amerika iyo jasiiradaha Caribbean-kana waxay helayaan 3,000 oo qof halka markii hore tiradu ay ka ahayd 1,500. qoondeyntan ayaa mar walba la jaan qaadin xaqiiqda. tusaale ahaan sanadii tagtay madaxweyne Trump waxa uu go'aamiyay in 42% dadka qaxootiga ay ka yimaadaan qaaradda Afrika. hase yeeshee markii la gaaray bishii Sebtembar ee sanadkan tiradu waxa ay ahayd 46%. dadka wax odorosa ayaa qaba sida ay u ekaan doonto xaaladda qaxootiga soo galaya Mareykanka in ay ku xiran tahay laba arrimood. midda hore ayaa waxa ay tahay waxa ka soo baxaa kulamo arrimaha qaxootiga laga yeelanayo oo maamulka Trump iyo Koongareeska Mareykanka dhex mari doona toddobaadka soo socda. midda labaadna waxa ay tahay sida barnaamijka qaxootiga ee Mareykanka uu sii socon doono maadaama saraakiisha qaxootigu ay sheegeen in tirada shaqaalaha ka shaqeeya arrimaha qaxootigu ay aad u yar yihiin. warbixintaasina Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo jeedinayay halkaad kala socotaana waa VOA.